taa ugu dambeysay jaamacaddu macal barsoorka iyo maamulka meeshaan ugu tagnay anagoon u tagin maan horta soo eegnay xayndaabka iyo bahda jaamacaddu area ay tahay wixii baanu soo marnay waxaanu aragnay dhulkii jaamacadda oo waliba cidhiidhi la soo galiyay maanaan arag dhul jaamacaddu ku xadgudubtay maanaan soo arag buuro ayaanu soo aragnay buuro waliba jaamacaddu tanaasul badan sameysay waana wax umadu leedahay miidiyana waxa ka maqlaynay qof la carabaabayo oo leeyahay hebel baa dhulkii qaatay waa shakhsiyan bay noqonaysaa waa dhulkii jaamacadda ka hadlaya laftigiisa ilmihiisa ka faa'iideysanay marka waxaanu leenahay war tanaasul badan la sameeyo waxyaabo badan oo khaladaada ama deelqaaf ku ah dawladnimada iyo qarannimada iyo guud ahaanba sumcadda gobol degmada waxaan leeyahay laga tanaasulo waxa weeye wax walba hadaynu ku hadalno waa mushkilad buur hadaynu beero ku sheegno waa mushkilad dhibteeda ilaa runtii waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa cidii gacan ka geysatay xayndaabka jaamacadda iyo guud ahaanba wixii danta guuda markii aan soo aragnay ee soo eegnay horta waxaan weynay wax gaar ah oo professor Evan leeyahay meesha waan ka weynay wax gaar ah oo professor Evan dul gaar ah uu leeyahay meesha waan ka weynay dul dan guud ah oo jaamacaddu leedahay ilaa jaamacadda dawladeed baan anagu la soo diiray baan aragnay beerahana wax lagu xadgudbay mana arage mid walba intii waliba laga iyagu inay wax ku darsadaan mooyaan wax ka raacay ma jiraan kuwa deerku soo maray iyo kuwa deerku mari doono iyo ummadda Soomaaliland gedo iyo dibad meel ay joogtaba waxaan u sheegnay deerkaas jaamacadda lagu soo xaydaamaya waa danguud waa dhulkii jaamacadda loo sii qabtay ee weligii laga ilaalinayay ayaa maantana deer la mariyay si aan loogu murmin maadaama dadkii dhulkii aad iyo jeer ku soo fidayaan waana dhul ku filan jaamacadda waqtiga soo socda oo fara badan insha Allah binaa karim waxa la ciido doon looga dhisi karo saaka oo bishu 9 tahay abaaro 9kii waxaanu kormeer ku tagnay intayada mas'uuliyiin heer gobol iyo heer degmo bartii ama goobtii jaamacadda loo xadeynayay deerkeegu ahaa runtii cabasho qura ayaa miidiyaha laga arkay waa hal beer laakiin ilaa 12 beerood ayaa meesha ah runtii maanaan soo arag haddaan nahay mas'uuliyiintii amniga ee heer gobol iyo barasaab iyo gudoomiye degmaba beer nin leeyahay oo ay ku xadgudbeen mas'uuliyiinta jaamacadda maanaan soo arag xaqiiqada markaan idin sheego dhul waxaanu soo aragnay ay jaamacaddu leedahay dan guuda aanu shakhsi mas'uula oo jaamacadda ka mas'uula aanu lahayn qofka waxa la yiraahdaa markuu dhul qaato waa dan gaar oo shakhsi ah laakiin hatta waxaan weynay dhul uu shakhsi leeyahay oo dan guud loo qaatay maanaan soo arag waxaan ka ahayn buuro cidla ah oo beerna ahayn waxna laga beerin waxaan u sheegayaa dadweynaha gobolka in danta caamka la ilaaliyo danta guud la dhowro meelaha la wada leeyahay ay ummaddu leedahay in la ilaaliyo oo la dhowro la iskana daayo propagandada dacaayada iyo been abuurka la wado